السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن wanaagsan akhyaaray meel kastoo aad joogtaan. waxaa hadda bilowday oo hadda socda telefishinada saaran weerarkii ay qaaday Iiraan oo ay kaga jawaabaysay weerarkii lagu soo qaaday. boqolaal sawaariikh ayaa la riday. xaalku halkee buu marayaa? qaylada isqabsatay qiiq fara badan ayaa ka baxay magaalada Tel Aviv. xaalku cirkaas ayuu marayaa. haddaba inkastoo weerarka uu cusub yahay khasaaro badanna aan la soo sheegin, laakiin waxaan idiin soo koobayaa wararkii ugu dambeeyay ee ay warbaahintu ka qortay. haddaba wararka waxay sheegayaan kanaalka Israa'iil ama telefishinada Israa'iil ayaa sheegaya dab xoog leh inuu ka kacay meel ku dhow wasaaradda gaashaandhigga ee Tel Aviv, halkaasoo la sheegay in markaa ay ku dhaceen sida la aaminsan yahay gantaalo ka yimid dhanka Iiraan. haddaba waxaa la sheegayaa sida uu ku waramay kanaalka 13 ee Israa'iil ay leedahay goordhow, waxa uu sheegay in dab xoog leh uu ka kacay xarunta wasaaradda gaashaandhigga magaalada Tel Aviv. waxaana la sheegay in sidoo kale warkaasi uu sheegay joornaalka la yiraahdo Israa'iil Hayom, waxa uu yiri 7 gantaal ayaa ku dhacday bartamaha Israa'iil. wakaaladda wararka ee Iiraan ayaa iyaduna sheegtay in uu bilowday weerarkii cagta lagu marinayay Israa'iil sida ay hadalka u qortay. haddaba wararku way soo dabatarayaan. hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan Ayatollah Khamenei ayaa isaguna goordhow waxa uu sheegay in aanay markaa la cafin doonin Israa'iil oo markaa iyadu ay bilowday dagaalka. waxaana uu sheegay in markaasi ay heli doonto qaraarka waxa ay bilowday. joornaalka Haaretz la yiraahdo ee Israa'iil ayaa isaguna wuxuu qorayaa, wuxuu leeyahay ku dhawaad 100 gantaal ayaa waxaa la sheegay in markaa ay Iiraan ku soo riday oo hadda ay ku socdaan Israa'iil. digniinta bixiya dhawaqa digniinta bixiya ayaa Israa'iil oo dhan laga maqlay. haddaba ciidamada Israa'iil waxay sheegeen in sawaariikhdaasi ay ka imaanaysay dhanka Iiraan. waxaana la arkayay sida wariyaashu ay soo gudbinayeen magaalada Tel Aviv oo qiiq fara badan uu ka kacay. haddaba madaxweynaha Iiraan ayaa isaguna hadlay. waxa uu sheegay in markaa uu la hadlay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uuna uga warramay gardarrada sahnuuniyadu cad ay ku soo qaaday dalkiisa. waxaana uu sheegay in jawaab ku filan ay Iiraan siin doonto oo hadda aan loo baahnayn cid kale oo markaa iyagu ay iska difaaci doonaan oo ay jawaabteeda siin doonaan. mas-uul Israa'iili ayaa isaguna goordhow sheegay in Iiraan ay doonayso in markaa ay bartilmaamaysato mas-uuliyiinta Israa'iil. waa tahay wararkaasu marka waxay ahaayeen kuwa hadda socda ee soo dhacay. marka xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee gubanaysa ayaa war ku saaran yahay. waa meesha Netanyahu uu ku dhunto waaye isaga iyo raggiisa. ogaada, waa wasaaradda gaashaandhigga hoosteeda god ku yaala. halkaasaaba qiiqa iyo waxaa ka baxay uurada. haddaan idin tuso waa yaabaysaan. qiiq fara badan ayaa ka baxay oo halkaa sida warbaahinta Israa'iil ay qorayso holac fara badan, laakiin weli wax warara oo intaa dhaafsiisan oo dheeraada lama hayo. dhanka kale waxaa la arkayay Suuriya dusheeda oo gantaalaha sida roobku ay ugu socdaan oo ay u gudbayaan iyagoo Israa'iil u socda oo halkaa ay ka gudbayaan oo markaa Israa'iil ay beegsanayaan. haddaba dhanka kale waxaa iyana la sheegayaa Israa'iil diyaaradaheedu iyaduna inay weerar qaadeen goordhoweyd oo ay Tahraan tageen, laakiin waxay la yaabeen mar kale Tahraan oo gantaalo cusub la soo baxday lidka diyaaradaha. waxaana wariyaashu ay sheegeen, hadda aan idinla hadlayo wariyaha telefishinka Al Jazeera ee magaalada Tahraan wuxuu leeyahay sida warka uu ku helay in la soo riday 2 ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil, sidoo kale kuwo kale oo daroon ahna la soo riday. xaalku faraha ayuu ka sii baxayaa. way sii kululaanaysaa mandiqada bariga dhexe. sida barnaamijkaygii kan ka horeeyay aan ku soo gudbiyo goordhoweyd, turkiga isaguna shir ayuu ku jiraa. wuxuu og yahay Iiraan haddii la qaramsado in isaga lagu da'ayo. sheekooyin la yaab leh ayaa iyana barnaamijkaas ku jira. dhammaan barnaamijyadeedu maanta way isku xiran yihiin. xogo muhiima ayaa ku jira. warka weerarkan oo faahfaahsan
goordhow ayaan idiin soo geli doonaa hadda ayuu socdaa wararkii ugu horreeyana intaan ayaa soo korortay netanyahu meeshuu ku jiray holac baa ka socdaa leeyahay inkastoo aan la hubin inuu ku jiro inka laakiin waa meesha uu ku dhunto wasaaradda gaashaandhigga barnaamijkaygii degdega ahaa inta